مسؤولية الدولة هوسية دقمة حدنا قبل كسال وهركع يما يركحون كدقمة حدنا عبد الناصر جورة يصير كل حد منا قولها ديجان كتلياش عيدا ماذا كلا دوين أيام ما أنت حرك كتر يسرود عصوبة لقيه الجلية دقمة داسي مناسبة حرك كتر كوحة وهرين تبقى هذلي مسؤولين كلا دوين saaka waa maalin sabtiya waxaan joognaa sarbadii degmada xudun oo saaka xarig laga jariyo taasoo xarig ka jariyaan mas'uuliyiinta degmada ugu horeeya maayirka degmada taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga odayaasha iyo waxgaradka degmada xudun oo dhan dawladda hoose muddadii sanadka hay'ad ay joogtay waxay qabteen waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay sarbadan maanta aan xarig ka jarno dhismaheedu dhamaaday sayladii xoolaha oo dhismaheediyadana shalay la bilaabay saldhigii asluubta oo isagana aan rajaynayno in sida ugu dhaqsaha badan loo dhiso oo dhulkii la bixiyey waxyaalo badan oo wadooyinka iyo hadday tahay baahiyo fara badan oo degmada ka jira intii wax ka qabteen waqtigay joogeen waqti aad u kooban buu runtii waxaan rajaynayaa muddada 4 sano u haray inay wax badan ay qabtaan oo degmada horumarkeeda iyo baahiyaheeda halka maanta waxa lagu xarqayaa sariibadii degmada xudun waana shaqo ay qabteen golaha deegaanka ee degmada xudun marka golaha deegaanka degmada xudun waxay qabteen hawlo fara badan oo ay ka mid tahay sariibadu waxa jiray sidkaas sidoo ka shay ay dhigeen waxqabadkuna maalinta ka dambaysa way soo taray ama hadli ilaahay marka labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka golaha deegaanka oo degmada si hagar la'aan ugu shaqeeyay waxaan u maleynayaa muddo kooban bay joogeen sanad ka yar marka waxqabadkuna wuu fara badan yahay oo waxyaalaha la dhiso ama meelaha sameeyo kaliya maaha waxa weeyaan wax iska ahayd meesha tani meel aan maamulku aad ugu yar yahay marka shaqo aad u fara badan bay qabteen oo aan la soo koobi karin aad iyo aad baynu ugu mahadsan yihiin halkan aanu joognaa waa sariibadii degmada xudun oo farta laga jaray oo ay dhiseen aad iyo aad baynu ugu mahadsan yihiin dhul badan oo ay wax ka qabteen ama dhiseenna way jirtaa marka waxaan leeyahay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan halkan kala dardaarmayaa dadka hiliblaha ah ee shaqada haya inay sariibada loo dhisay ee saaka u dhisan sida wasaaradaha lagu wareejinayo inay sideeda ahaato oo ay xilis ka saaraan oo mas'uuliyad iska saaraan halkan aan joognaa waxa weeyaan sariibadii oo saaka la xarig jarayo oo golaha deegaanka u dhisay awal la burbursanayd oo ahayd meel qashinka lagu qubo hadda guriga quruxda badan ah oo wax qabadkii degmada waxyaalo badan bay qabteen golaha deegaanka yarna way dhisnaayeen aad baan golaha deegaanka ugu mahadnaqaynaa maamulku si qurux badan oo taaka uga socdaa dadku wax badan bay iska sheegaan oo dhaliiluhu way iska badan yihiin dhaliishtu waxaan qabaa waa toosin haddaan cudurdaar loo yeelin marka sariibadii baa saaka la xarig jarayaa golaha deegaanka aad baan ugu mahad celinaynaa baahiyo badanna way qabteen wadooyinka dhagaxyaa tuuraa way xidhnaayeen meel kasta hadda oo magaalada ah wadooyinkeedu way furan yihiin oo ka jarayo xariga maayir ku-xigeenkii iyo maamulkii dawladda hoose oo isku duuban dhammaantood iyo xildhibaanadii waxa weeye cid gaara dhaliili mayno oo oran mayno maamul hore ma jirin laakiinse waxaanu qiraynaa maamulkan inuu shaqeeyey wax badan qabtay haddii la ku roon yahay sida tolo kale kuwa kalena oo haddii la ku roon yahay gacanta lagu hayana way jiraan marka waxaan leenahay qolada maamulkaana hawshan aad qabateen si fiican inuu maamula oo haddii la ku roon yahay cid mas'uuliyiin inuu dhiiba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الرحمن الرحيم إلهي بمهد إسكاله halkan waxaan saaka aadaan uga salaamayaa uqaasha degmada odayaasha degmada agaasimaha caafimaadka macallimiinta amaanduulaha militariga saraakiisha biliiska dhammaan waxgaradka ka soo qayb galay xarig jarkan sariibada aad iyo aad baan u salaamayaa
waxaan kaloo aan aad iyo aad u salaamayaa barasaabka gobolka cabdikariin xaaji diiriye wasiirka arrimaha gudaha dhammaan xukuumadda haddeer maamusha waddanka oo noo fududaysay in aanu waxqabadka waxa aanu qaadanno aanu degmada wax uga qabanno haddana wehol jirta waxyaalo kale oo badan oo gaadiidkii uu ka mid yahay degmada bilayska oo ka maqnaa inay nagala howlgalaan oo wax iyaga aanu ku qabsanno sida waxqabadkan oo kale aanu ku qabannay bulshada reer xudun aad iyo aad baan u salaamayaa waa dad wanaagsan siday noo garab istaageen muddada kooban oo 9 bilood iyo waxa aanu waa dareemi kartaan 9 bilood ama 10 bilood dad xafiis aan maamul hore ka shaqeyn joogay waxa ay qabteen waa waxa aad u qiimeyn kartaan qofku wanaaga jecel ama waxqabadka jecel waa qof waa wax u qiimeyn karo sariibada kaliya 4 bilood socotay hadda saakayna xarig jarayno waxa weeye marka 9 bilood wayna qiimeyn karnaa godka qashinkeena samaysanay gaarigii nadaafadiina soo iibsanay sariibadii bayna qabanay jidadkii degmadayna ka shaqeynay meel walba oo xubneed cagafyeen gelina wadinka arkay haddana waxa la bilaaway oo hadda gacanta lagu hayaa oo dhagaxii ku socdaa siiladii waxa kaloo hadda wiiganayana la qaban doonaa secretary-ga deerkiisii saldhigga asluubta dayactirkii saldhigga weyn oo degmada waxqabadku wuu soconayaa waxaan halkan aan uga digayaa aan uga baaqayaa xildhibaano qariyay waxqabadkii iyagoo degmada u qabteen dafiray waxaan leeyahay halka jawaab aad u badan ka bixin maayo waayo waxaan uga bixinayn gaari qaad sidoo soo hoomiyay jawaabtiisu jawaab male marka bulshada reer xudun waxaan u sheegayaa waxqabadka sida aad aragtaan oo aanu idin la qabanayno wax idin ku qabanayno inta aan xafiiska fadhino annagoo ka sii kordhino mooyaane dib uga sii dhigi mayno wax kasta aan ku fikirnaa sanad kasta inaanu fulino waxqabadkeega aanu soo bandhigno aanu degmada u qabanay inta xafiiska joognaa noo ballana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhismahan iga dambeeya waa dhismaha maanta xadhigga laga jaray ee sariibada degmada xudun waxaana xadhigga ka jaray dowladda hoose ee degmada xudun wuxuuna ka mid noqonayaa waxqabadka dowladda hoose waa anigu maxamed maxamuud cawiil kawte degmada xudun ee gobolka Sool.